السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ملكستو أجوكتان يسكستو آتنو داغونيسان قصدا وقصو حكمتكو صليسان وحنا رجينيا إن أد 10 أد كقادن دونتان إسلام مركانا وحبدان أد كفائدي دونتان وحنا أي سبب دونتان إن مسكحدي إن الدب أد أعلسان أو أد حسوس دب أد أقشان هذا بقى قصدو محيكو سابسان تاي أنا دين قودا قلب hadda ka hor ayaa waxa dhacday nin wadaad caalim ah oo magaalada banaankeeda ama meel duur ah degan ayaa waxa u yimid laba wiil oo dhalinyaro ah labadii wiil waxay doonayeen in wadaadka ay wax ka bartaan way u yimaadeen oo waxay yiraahdeen sheekh waxaanu doonaynaa in aanu markaa cilmi aanu ka barano ama ka raacno wadaadkii markay u tagayeen laba shimbirood ayuu gacanta ku hayay wuxuu yiri igu soo celiye ma waxaad rabtiin in aniga aad wax iga barataan ha waxaad sameeysan horta inta aanan idin jawaabin labadan shimbirood waxaad sameeysan qof walba mid ha qabto labadii shimbirood ayay gacanta ku kala qabteen labadii wiil wuxuu yiri hadii aad doonaysaan in aniga aad wax iga barataan oo aan wax idin baro oo cilmi aad iga kororsataan shuruud baa ka horeysa أنا دكتور حرية وحي يراهدين شروط محيطها ناصو بندق وذاتك وحو يري نوال بشمبرتا أو ديبي هقاضو مال عدلاء أو أنا عدنا أركين هلاتقو هسود ديلو كدبنا يضو ميد شمبرتا يسوع عليو هذا بقى متكمد ويلاشي مبو سوالين shimbirtii buu qaaday meel halkan oo waxa weeye duur ah oo wadaadka gurigiisa dhabarkiisa ku yaalay ayuu shimbirtii la galay geed ayuu isku qariyay geesuhu iska eegay kadibna markuu arkay inay meel cidla tahay ayuu wuxuu sameeyay marka shimbirtii halkii ayuu ku dilay meedkii ayuu soo qaaday oo wuxuu u soo celiyay marka wadaadkii hadaba kii kale ayaa isna shimbirtii qaaday asaga guriga agtiisa la muusan tagine aad buu uga fogaaday meel fog buu la tagay oo cidla ah oo aanay cidina joogin wax shanqaraya aysan jirin kadib geesuhu iska eegay ninkii fikir baa ku dhashay fikirka ku dhashay wuxuu ahaa wuxuu isiriniyahu shimbirtan hadda aad dilayso de laba indhood bay leedahay oo way ku aragtaa teeda kalena allihii ku abuurtay ayaa ku arka wadaadkana wuxuu yiri meel aan cidina ka arkayn amaba lagaaba arkayn shimbirta tag oo ku soo dil marka wuxuu yiri macquul ma aha oo shimbirtan ma dili karo waayo iyadii baa ay aragta ilaahi abuurtay iyada iyo anigana wuuna arkaa marka meel cidla ah oo aan shimbirtan ku dili karo haba yaraatee kolay ma hayo marka iyadoo nool baan isaga celinayaa wadaadka wuxuu doonaa ha igu sameeyay ama wuxuu doonaa ha idiida cilmiga ama ha yeelay asagoo sida ku fakaray ayuu soo laabtay tartiib wuxuu u yimid wadaadkii wuxuu ku yiri maxad shimbirta u soo celisay balanteena Soomaaliya inaad shimbirtan aad soo disho wuxuu yiri sheekh dhageyso adiga waxaad igu tiri meel aanan cidina joogin laga arkayn marxaatina lahayn shimbirtan gee oo soo dil way dhici weyday buu yiri marka waayo shimbirta laba indhood bay leedahay oo iyada ayaa ay aragta inaan dilayo kow tan labaadna allihii iyada abuurtay anna ii abuuray ayaa na arka oo meesha cidla ma aha marka sidaa daraadeed waan dili kari waayay buu yiri marka shimbirta maadaama shuruudaadu ay ahayd in meel cidla ah oo aan cidina joogin oo aan la arkin inaan ku dilo waan soo waayay meel cidla ah haddaba wadaadkii wuxuu yiri niyahu waad saxan tahay
sax ayaad samaysay oo waa xaqiiq in shimbirtanna ay ku aragto ilaahay ku abuurtana uu ku arko sidaa daraaddeed soo dhawow waxaad ka mid noqonaysaa ardaydayda oo diyaar ayaan ku ahay inaan wax ku baro ninkii kale ee shimbirta soo dilay wuxuu ku yidhi niyahow adiga iska raalli ahaw waana garanaysaan sababta uu ninkaasi ama wiilkaasi dhalinyarada ah uu ugu diiday in uu markaasi cilmi uu baro oo uu u faa'iideeyo haddaba dulucda sheekadan aan u soo qaatay ayaa waxa ay tahay haddaynu sida ninkaasoo kale mar walba aynu xasuusanno in allah uu noo jeedo oo uu na arkayo mar kasta oo aan dembi samaynayno ama meel kastoo aan joogno dembiye baanu samaynaa bini aadan baan nahay haddaba marka aad dembi aad samaynayso haddii aad ku fakartid in allahii ku abuurtay uu kuu jeedo xitaa marka meeshu ay cidlo tahay oo cid kale aysan joogin ilaahay meel walba waa uu joogaa waana uuna arkaa marka haddii marka taa aad ku fakarto ogow waxaad ka badbaadaysaa in wax dembiyaba aad gasho wax dembi ah oo diinta ay xarimayso inaad gasho ayaad ka badbaadaysaa sidaasna waxaad ku shaqaysanaysaa markaa aakhiradaada iyo jannada qof walba doonaya inuu galo waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad ila socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka iyo channel-ka Bulqaas Media hanaga ilaaweyn inaad subscribe like iyo follow aadna soo tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday hanaga ilaaweyn in muuqaalkan aad share garayso si dad badan uu u gaaro ugana faa'iidaystaan wixii talo iyo tusaale ah dhinaca commentiga ayaad nagula wadaagi kartaan aad ayaad u mahadsantihiin